waxaan salaamayaa odayaasha nabadoonnada ugaasyada saraakiisha dhalinyarada ee baxa saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta degmada Afgooy gobolka Shabeellada Hoose waxaa isugu yimid beesha Garre iyagoo ka kala yimid degmooyinka ay ka mid yihiin Walweyn Qoryoole iyo Awdhigle iyo Afgooy waxay shirkooda ku qabanayaan ayaamaha mashar ugu socday ay ku beeranayaan war mar dhow naga soo gaaray magaalada Xamar oo ay sheegeen baalniman Garre ah oo aanan ogeyn laakiin hal meesha ay ka hayaan oo ay yiraahdeen beesha Garre 15 sano ugaas ma laha nabadoon ma laha golo guurta ma laha arintaas ayaan beeranaynaa waxaana been cad ah in arintaas aan jirin oo beesha Garre ay leedahay ugaas soo jireen ah golo guurta soo jireen ah nabadoon soo jireen ah 20 iyo dhowrka sano ko dadaalayay nabadda iyo qaabada iyo soo nooleynta beesha iyo khilaaf la'aanta ka shaqeynayay ayaa jira iyagoo waxa soo ogeysiinin ay waxay sameeyeen in aan la ogeyn in ay sameeyaan wax been abuur ah dadka beesha Garre waa badan tahay beesha markaan horta idinka sheekayno taariikhdeeda waxay degtaa meelo badan sida Ethiopia iyo Kenya iyo Chad iyo Soomaaliya ay degtaa meelo badan waa ka imaanaysaa laan dibadahana waa jirtaa dadka la sheegaya oo meesha joogana annaga hadda nin magacyadooda qariyay waay nin magaciisa qariyayna ma naqaana waxaan dhaha karno waa sheegi lahayn waxba ma waa dhaha lahayn waxna waa yahay waa dhaha lahayn laakiin hadii magacooda la qariyay oo beesha Garre ay sheeganayaan waad fahmi kartaan in ay maartay beesha Garre aan wakiil ka ahayn ayaa arintaasi jirto ma sintii tan kale waxaan sheegaynaa beesha waxay leedahay ugaas horta waxa la yiraahdaa marka ay sheegay beesha tuufi quraan la yiraahdaa tuufi quraan laba ugaas ay leeyihiin golo guurta ay leeyihiin nabadoon ay leeyihiin waxay leeyihiin saraakiil waxay leeyihiin hadda u dooran gobolka Shabeellada Hoose gobernatoor ay leeyihiin gudoomiyaal degmo ay leeyihiin eldhabaanya ay leeyihiin wasiir ay leeyihiin inta wax sheegtay ma naqaana marka meesha ka yimaadeen iyo dadkan beesha Garre sheeganaya waxaan u malaynayaa beesha Garre maba ahee niman beesha Garre xumeynaa inay yihiin beesha Garre hadalladooda waa dhahaysaas waa dad beesha Garre xumeynaa ma qabna beesha Garre oo tafraaruqaas lama sheegin mana ka warqabno mana naqaano haddii hebel la dhahlaayeen waa sheegi lahayn laakiin arintaas niman beesha Garre haleynaya oo maartay oo wax u raadinaya magaxumo u raadinaya inay yihiin malaynaynaa arintaas waxaan u sheegaynaa adduunka iyo dadka nala diga iyo Soomaaliyeenta iyo dawladda federaalka ah iyo tan koonfur galbeedba waxaan u sheegaynaa arintaas inay been abuur tahay aan waxba ku jirin beeshina ay tahay sideedii khilaafna aan ku jirin ayna toosan tahay hoggaankeedana oo siyaasadana uu yahay gobernatooraha gobolka Shabeellada Hoose hoggaanka siyaasadda guud ay u tahay xildhibaanada iyo wasiirada hoggaanka beelaha dhaqankana ay u yihiin ugaasyada iyo nabadoonnada ay u yihiin iyo saraakiisha intaas aan ku soo gudbinayaa waxa tan waa been waxaan halkaan ka salaamayaa odayaasha dhaqanka ah nabadoonnada iyo samadoonnada yaanta mashirkooday degmada Afgooy ee gobolka Shabeellada Hoose ayagoo ay ka tiiraanyoodeen sina ku xumaadeen wargeys oo been ah oo faals ah magaalada Muqdisho lagu sheegay ay ku soo dhoobdhoobeen tolkana meel looga dhacay beeshana meel ay ugu dhaceen ambaareen waay waxaan ambaareynaynaa wargeyskaas qori arintaas aan lahaynay wax kalsooni ah ama wax jir aan ahayn ay ku sameeyaan arin been ah waxaan ogolnahay wargeyskaas waa inuu ku noqdaa kuwaas oo sawirradooda qariyay magacyaalkoodana qariyay ma matelaan beeshan ma matelaan rag iskugu tagay kureesadada number 4 waaye waana been saas ayaan ugu bixinaa waa billahi tawfiiq